wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya Maxamuud Jaamac Galaal ayaa xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanka Cana Dhexe ee ka tirsan gobolka Togdheer. Xanaanada caafimaad oo hirgeliyeen qurba-joogga deegaankaasi ayaa furitaankeeda waxaa ka hadlay xubno isku jira qurba-joog, cuqaal iyo waxgarad, kuwaas oo dhammaantood tilmaamay muhiimadda xaruntan caafimaad u yeelan doonto bulshada deegaankaasi. muddo ilaa imka 3 bilooda ayay dhagax dhigeeda iyo dhiskeedu qiyaasi ay ku dhowdahay inta xanaanadan Cana Dhexe nooc kasta oo looga baahnaa way u soo dhameystireen. ilaahay khayr ha siiyo hana ka abaal mariyo waxay qabteen wax runtii aan oran karo wax lagu faano weeye. aniga ku hadlaya afkaarta shacabka reer Cana Dhexe qurba-joogta sharafta leh ee dhismaha ka noo suurtagelisay goobtan caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka noola qalabaysay. waxaanu leenahay qof kasta kii fikir ka geystay, kii hanti bixiyay, ciddii kasta arrinkayga qabanqaabo ka gashay, ilaahay wax roon ugu bedelo. markaan aragnay madaxweynuhu sidoo u shaqeynaya wuxuu qabtay markaa waxaan waryaadheen war aan fursad siino waxbayna ku degdegin kaanu ku maqnay horta marka hore waa taa labaad markii meel walba looga soo cararay qabay waliba u tagtay tii waxbaanu doonaynaa ee kuyuga loo qabsaday markaana waxaan war kuyuga ayaan ka qayb gali. haddaba imiga waxaan idin sheegayaa hadday wasiirka tahay iyo hadday dawladdu maqlayso meel kastaba ha joogto haddaanu soo soconnaa. waxaan maanta halkan insha Allah anigu aan horta idin dhagax dhigayaa oo aniga wasiirku aan idin dhagax dhigaynaa saldhigii magaaladu ay lahaan lahayd insha Allah. rabadaantu markay dhimaato kadib insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa anigu halkaadii ka ballan qaadayaa anoo maayirka ka wakiila inaan insha Allah idin bilowno saldhigii. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xariga ka jaro xarunta xanaanada ee deegaankan. waa adeeg lagama maarmaan ah oo loo baahnaa oo waxtar weynna bulshadu ay ka dheefi doonto. waxa kaloo mahad inaga mudan qurba-joogga iyo dhalinyarada ishtihaaday ee markay baahidii deegaanka arkeen si degdega tallaabooyin u qaaday ay baahida ku gufeeyaan. geesta kale waxa wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya uu dhagax dhigay saldhig booliis iyo dhismo dugsi oo ay hirgelin doonaan qurba-joogga deegaankaasi. Kays Axmed Dagaale, Home Cable TV, Burco.